السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مدشا قومدا waxay idinku marti qaadaysaa ka soo qaybgalka bandhiga dhiganaha daroogada cagaaran ee uu qoray qoraaga Maxamed Xaaji Maxamuud Qurac. qaadka maadaama uu yahay aafo qaran waxa laga maarmaan ah in xal loo helo. qaadku waa mushkilad iyo aafo haysta mujtamaca iyo bulshada Soomaaliyeed. dadkii way og yihiin dhibaatooyinka amba saameynta uu ku leeyahay qaadku. hadimooyinka qaadku waa waxa ugu habboon ee loo baahan yahay in laga hadlo inta badan. runtii waxyaalaha cajiibka aad ka soo jeedisay waxa kamid ah marka koobaad ogaan inuu leeyahay wax uu uga duwan yahay dhibaata kale. oo runtii dhowr ah laakiin aan ka xusi karaayo inay kala weyn yihiin ogaan intuu leeyahay iyo nuxurku sido. lambuga buug yar oo 150 ka kooban laakiin nuxurku sido iyo xogtiisa runtii ay ka weyn tahay sida taasi waa wax u gaar ah buugan. sidoo kale waxyaalaha u gaarka buugan waxa kamid ah in chapter kasta markuu dhameeyo uu ku sameeyo qoraagu waxa uu bixiyay nuxurku kugu soo celinayo nuxurkii kooban chapter waxa ku soo martay. halkaas mas'uuliyadiisa ma ahan mid laga sugayo qofka ku ibtilaysan kuna aafaysan mushkiladda qaad cunista waxa halkaas leh qofka aqoon-yahanka ah ee ka badqaba kana fiyo daroogadan cagaaran. haddaba si qofka aqoon-yahanka uu u noqdo mid awood u leh in uu ku qanciyo qofka cunaya qaadkan dhibaatada uu leeyahay iyo mushkiladda weyn ee uu wajahayo waa inuu isaga marka hore uu ku hubaysan yahay aqoon buuxda oo ku aadan daroogada cagaaran ama qaadka. haddaba buugga daroogada cagaaran waxa uu ka saacidayaa inaad noqotid mid faham buuxa ka haysta mushkiladan ay wajahayso ummadda Soomaaliyeed isla markaana xal ka geysan kara. qaadka hadaynu hodmayna